السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كستشات جوجتان كسو دوادا برنامجكي سبورتي هالو مالي كستاد كلا سعوديان بارتينا يوتيوب كي عيارها لاتز توب مقال عصب اعسلي هالو مانتي وحان كوغي دونا وراركا ودن بي عيارها سيب وحان اينا كلان كهريالكا بريم ليغا العياري هابينكو على تشي يولا دبحر وحان اينا كلان ماذا ودن بي يوفا تشامبيونز ليغا horyaalka qaradaha Yurub oo la xiyaaray wow Ronaldo iyo Messi aad moodin caladooda jay mid aan la sodaalin karin waxa soo kale eegayna sida kooxda kubadda cagta Man City ay iminka la wareegtay si toos ah horyaalka Premier League maga dhibcoodaya ka horeeyaan kooxda ku jirta kaalinta labaad iyo kooxda difaacanaysa horyaalka waxa soo kale eegi doona Europa League reer qamisle United Arsenal iyo Liverpool Spurs yaan eegin hadaan ku cusubtahay subscribe noo sar hadaan naga mitana like nagu dhiirigelisaan helna saxbo wanaagsan sida adiga kale tia hadaan ku bilowno horyaalka Champions League oo la ciyaaray maalmaha Talaadada iyo Arbacada siba Talaadada hadii aan eegno kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa waxay soo dhaweysay kooxda kubadda cagta PSG Barcelona ayaa la hormartay gool uu dhalay ciyaaryahan Lionel Messi gool kulaad daqiiqadii 27 hase haatee ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa goolkii barbaa u dhacay kooxda kubadda cagta PSG daqiiqadii 32 qaybtii hore ayaad moodaa in ciyaartu ay ku soo dilaatay hal qaybtii labaad ayaa wax kasta isbedeleen ciyaaryahan Mbappe ayaa soo kalsiyay laba gool oo degdeg ka dhalay kooxda kubadda cagta Barcelona daqiiqadii 65 iyo 85 waxa soo kaleetay goolkii kale uu dhalay kooxda kubadda cagta PSG ciyaaryahan Keane si ayaad moodaa in Mbappe uu dhalay saddexleediisii ugu horeysay oo ka tirsan horyaalka Europe UEFA Champions League first ever history ciyaaryahan Mbappe uu sameeyay imika waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta ee PSG ay soo dhaweyn doonto naadiga Barcelona garoonkooda marka rajada Barcelona ayaa mid aan inta badan la sadaalin karin haddii aan soo kale eegna dhanka kale ee kulanka kale oo labaad oo la ciyaaray Talaadadii waa kulankii dhexmaray naadiga Leipzig iyo Liverpool aan ognayn horyaalka Premier League ay xaaladooda mid aad u liidato haasaate waxay labi eber direen naadiga Leipzig ciyaaryahan Mohamed Salah iyo ciyaaryahan Sadio Mane ayaa labada gool u kala leeyay kooxaha Liverpool si ay moodaa in Liverpool ay hal lug iminka ku gashay quarter finalka Champions League naadiga Liverpool ayaa naadiga ku guuleysay Champions League 2019 iminkaas waxaad moodaa in rajada Champions League ay tahay mid waliba nool wow tababaraha kooxdaas Jurgen Klopp ayaa wargeyska The Bills ka soo baxay Jarmalka wuxuu sheegay in rajada Liverpool Champions League ay tahay wali mid nool soo kale waxaan eegaynaa kulamada kale oo la ciyaaray maamul bacdo ka tirsan Champions League waxaan is arkay naadiga Juventus iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Porto Juventus ayaa si marti ah waxay la ciyaartay naadiga Porto hase haatee kooxda kubadda cagta Porto ayaa waxay nasiib u heleen in daqiiqadii labaad qalad uu galay difaaca kooxda kubadda cagta Liverpool ka fadhiisteen ayna ciyaartu hogaankooda la wareegeen isla qaybtii hore ayaad moodaa in kooxda kubadda cagta ee Porto heleen goolkii labaad ciyaaryahan Marger ayaa u dhalay daqiiqadii 40 qaybtii labaad markii la isku soo laabtay ayaa askariga kooxda kubadda cagta Juventus waxay la soo baxay doontaa waji kale hase haatee dadaal dheer kadib ciyaartu waxay ku soo dilaatay in Porto ay garaacdo Juventus 2-1 ciyaaryahan Chiesa ayaa u dhalay goolkii kale kooxda kubadda cagta ee Juventus kulamada kale ee Champions League la ciyaaray maalmaha Arbacada hadii aan waa kulankii dhexmaray naadiga Sevilla iyo waliba naadiga kale ee Borussia Dortmund ciyaartaas ayaa moodaa inay tahay ciyaar aad u kulul hase haatee kooxda Dortmund oo martiya ayaa waxa ay 3-2 direen naadiga Sevilla ciyaaryahan Haaland ayaa laba kamid ah dhaliyay halka soo kale ciyaaryahan Donha uu dhalay goolka kale ee kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund kooxda Sevilla waxa goolash ka dhalay ciyaaryahan Suso iyo waliba ciyaaryahan De Jong imika waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ay tahay koox iminka la dhihi karo waa u soo gudbi karaan quarter finalka Champions League asaate kooxda Sevilla ayaa koox aan iyaduna yeeraysan soo kale marwalba saacad kasta laga yaabaa inay waji kale la yimaadaan garoonka ciyaaryahan Jude ayaa ciyaaryahan daayar oo 17 jir ah kana mid ah xulka qaranka Ingiriiska kuwa da'dooda ka hooseysa 17
ayaa habeenku xalaytay fursad dahab helay isagoo saftay Champions League waxaanu aad uga soo dhex muuqday qadka dhaca kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund guushi cali ayaad moodaa inuu ka qaatay qayb lagu hala caga iyo horyaalka Premier League kulamada ugu dambeeya la ciyaarsiiba kulamada faydada kooxda kubadda cagta Man City ayay waxay 3-1 dirtay naadiga Everton oo joogo gurigooda Goodison Park ciyaaryahan Foden ayaa goolkii koodu dhaliyay naadiga Man City daqiiqadii 30 halka ciyaaryahan Richarlison uu dhaliyay goolkii barbaraha naadiga Everton daqiiqadii 30 qaybtii markii la ku soo laabtay aad moodaa in kooxda kubadda cagta Man City aad moodid inay tahay intaba ooman inay ku guuleystaan Premier League ciyaaryahan Mahrez ayaa daqiiqadii 63 goolkii baad u dhaliyay naadiga City halka goolka saddexaad uu dhaliyay ciyaaryahan Bernardo Silva daqiiqadii 77 sida ayna kooxda kubadda cagta Man City ku dubatay kooxda kubadda cagta Everton oo joogto Goodison Park hal iyo sada ciyaartii kadib ayaa mooday waxa la arkay ciyaaryahan Amson iyo Gabritas oo taxsanaya dhigooda ciyaaryahan Richardson guuldarada soo gaartay kooxdiisa haddii aan soo kala eegno kulamada caawa la ciyaari doono reer Qamsley si waxaan eegaynaa kooxaha horyaalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Real Sociedad ayaa waxa wajahi doontaa naadiga Man United garoonka Torino kooxda kubadda cagta Juventus saacada markay tahay 8:55 daqiiqo habeenimo halkay Slavia soo kala qaabil doonto naadiga Leicester isla saacadaasi halka soo kala ay kooxda kubadda cagta WAC soo kala soo dhaweyn doonto naadiga Tottenham Hotspur isla saacadaasi 8:55 daqiiqo kulanka kale ee dhex doono Koyton habeenimo waa kulankii dhex mari doono naadiga Benfica iyo waliba kooxda kubadda cagta Arsenal waxaan moodeen horyaalka kooxaha horyaalka Ingiriiska afar kamid sida United, Leicester, Arsenal iyo Tottenham ay iminka ka ciyaaraan Europa League barnaamijkii sported kala socoteen ciyaaraha la test tube ciyaarey